بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel ka Chuba Institute of Professionals. ومر kale iyo koorsadeena ama casharradeena taxanaha buuggii 4000 Essential English Words Practice. Macnaheedu tahay 4000 eray ee lagu isticmaal baday Ingiriiska. Casharradaas oo ku saleysnaa ama ku saleysan buugga oo qoray Paul Nation ee loo yaqaano 4000 Essential English Words. Kusoo dhawaada. Hadaba casharkani waa casharkii saddexaad. 4000 Essential English Words Practice Book lesson 3 way. Waxaana ku qoran yahay page-ka 4aad ee buugga Essential English Words ee uu qoray ninka loo yaqaano Paul Nation. Buugga waxaa ka helaysaa videogan hadda aad daawanayso hoostiisa qaybta description-ka ayaa waxaa kugu siiyay linkiga Telegram groupka. Fadlan Telegram groupka ku bir, halkaasna waxaad ka helaysaa buuggan iyo buugaag kale. Soo dhawow. Haddaba waxaan maanta qaadanaynaa ereygii 22aad ee ereyadii 4000 Essential English Words, waana ereyga koobaad ee casharkeenan maanta oo casharka saddexaad. Haddaba waxaa horey uga soo duubnay 2 video oo aan ku soo duubnay min 10 eray. Sala socotaan video kasta waxaa ku duuban 10 eray, waana waqti kooban. Haddaba fadlan si aad ereyadii ku dhaafay aad oola soo qabsato, soo daawo labada video ee kale 1 iyo 2 waxayna ku jiraan hal playlist ayay ku jiraan. Haddaba ereyga maanta koowaad aan qaadanayno waa ereyga loo yaqaano adventure. Macnaheedu waxa weeyaan waa shay xiiso leh oo haddana halis leh. waa inaad samayso wax xiiso leh oo haddana halis leh. Marka waxaa ereyada Soomaaliga ugu dhow waxa weeyaan qaar iska tuurnimo, tijaabo xiiso leh ama tacabur. ereyadaas ugu dhow. Macnaheedu waxa weeyaan waxaad samaynaysaa wax xiiso leh samayntiisa, laakiin haddana halis leh oo dadka inta badan ay ku dhiiri karin. Marka uu ku fasiray, an adventure is a fun oo waxa ka hesho or exciting ama xiiso leh, exciting thing, shay xiiso leh that you do aad samayso. Marka waxaan ku leeyahay adventure waxaa lahaa ereygan macnihiisa ugu dhow waxa weeyaan qaar iska tuurnimo ama tacabur ama tijaabo xiiso leh. Macnaheeda laga wado inaad samayso waxyaabo halis leh oo dadku badan ay ka cabsadaan oo haddana laakiin xiiso leh. Tusaale aad ka fahmi kartaa. Tusaale wuxuu ku yidhi riding in the rough water. In aad doon ku kaxayso biyo kacsan was an adventure. Waxay ahayd wax halis leh oo haddana xiiso leh. In biyaha kacsan waxaa dhici karta doonta inay kula gadoonto. Sidaas ayaa marka ereyga adventure loogu bixiyay. Ereyga labaad ee maanta baranayno waa approach. Waxaa lahaa waa u dhawaansho. Inaad u dhawaato meeshaad u socoto u dhawaatay ama qof loo dhawaato. Marka approach waa u dhawaansho. waxaa kaloo ereyga approach lahaa markii aad qof marka u horeyso aad oola tagto qorshe, isagana approach baa lahaa. Sadaratan waa verb. ereygu waa verb oo waa ficil. waa ka marka macnihiisi oo English to English. To approach something means shay inaad u dhawaato waxay ka dhigan tahay to move close to it. u dhawaansho. Approach waxaa ku macnaa haddii what's the meaning of approach? Move close to it. inaad u dhawaato. To move close to it. waa ka tusaale, the boy approached. wiilkii wuxuu u dhawaaday his schoolkiisa. aad buu ugu dhawaaday. The boy approached. wiilkii wuxuu u dhawaaday his schoolkiisa u dhawaaday. ereyga 23aad waxa weeyaan
carefully si taxadar leh laga wadaa carefully waa si taxadar leh ereygan waa adverb haddaad maqasho waa qayb ka mid ah grammarka ama ereyada oo kuu sheegay habka ay wax u dhaceen habka falka loo sameeyey marka carefully means carefully waxaa laga wadaa ku yidhi with great attention inaad wax u samayso adoo aad ugu fiirsanayo ama ka taxadarayo especially to details adoo u fiirsanayo faahfaahinta or safety ama badbaadada waa ka markaa tusaalihii waa kana the baby cunuga yaraa carefully si taxadar leh climb down ayuu uga soo degay ereyga waa climb down si taxadar leh ayuu uga soo degay the stairs jaranjarta the baby carefully climbed down the stairs the baby ilmihii yaraa carefully si taxadar leh climb down ayuu uga soo degay the stairs jaranjarta ineen marka ereyga climb baa loo akhriya dad baa si kale u akhriyo way khaldan yihiin marka waa climb down soo degay horta ilmaha markuu jaranjarta ka degay si tartiib u degaa ereyga afar labaatanaad waxa weeyaan chemical waa chemical waxyaabahan markay mataqaana shay baarka iyo marka wax la sameynayo badan chemical la isku daro waxaa la chemical a chemical is something waa shay weyn that saynisyahanada use ay ku isticmaalaan in chemistry way u isticmaalaan chemistry maadada chemistry waa kala marka tusaale the scientist saynisyahanadii ama the scientist mixed wuxuu isku qasay the chemicals marka marka la isku dardaro waxyaaba laga sameeyaa waxba ka soo baxo chemicals waxyaaba marka la isku daro waxyaaba ka soo baxay waayahay ereyga sharci labaatanaad waa create waa abuurid waana verb ficil waa verb ficil to create means create waxay ka dhigan tahay yidhi to make something new inaad wax cusub samayso create waa abuurid marka to create means to make something new wax cusub inaad samayso inaad wax cusub aad samayso ayaa waxaa lahaa create marka create waa verb waa ficil macnaheedana waa abuurid waxay marka to create means waxay ka dhigan tahay to make something new inaad samayso wax cusub she created waxay samaysay ama abuurtay an igloo from blocks of snow igloo waxaa lahaa guri ay galaan dad gaagaaban oo ku nool dhulka barafka ama eskimos dadkan eskimos dad meeshaas gaagaaban oo dhulkan xirifyada meelahan qabowyaha ku nool weye marka waxay samaystaan guri bay ka samaystaan barafka hoostiisa galaan marka waxay she created an igloo waxay samaysay igloo oo ah guriga dadkaasi ay galaan dhulka barafka degan from blocks of snow barafka bay ka samaysay snow marka waa baraf snow waa baraf guriga badanaa barafka cirka kasoo da'o ayaa waxaa lahay snow marka ereyga lixlabaatan waxaa weyaan evil wax xun wey ama shar evil waa wax xun ama shar evil describes evil wuxuu qeexaya something or someone bad ruux xun ama shay xun or cruel ama xasida not good aan fiicnayn marka the evil figure jantuuskii ama sawirka xumaa scared us ayaa naga cabsiiyey all dhammaanteed marka evil waa wax xun ama shar baan dhahay evil wax xun ama shar evil describes evil wuxuu qeexayaa buu yidhi something shay or someone ruux bad xun or cruel ama naxariis laawo ah not good aan fiicnayn marka you are evil haddaan ku dhaho shar baa tahay shar the evil figure
the evil figure sawirkii xumaa ayaa scared us naga cabsiiyey all marka figure badana waa jaantus oo sawir camal wayahay ereyga 27aad ee maanta baranayno waa experiment ereyga waa experiment waa tijaabo macnaheedu waxa weeyaan waa tijaabo experiment waa tijaabo waana noun oo waa magac experiment marka experiment waa tijaabo badana markii wax la sameynayo tijaabooyinka la sameeyo sida daawooyinka markii la sameynayo kale experiment waa la sameeyo an experiment is a test waa tijaabo that you do as sameynayso to see saad u aragto what will happen waxa dhacay tan laba shay marka la isku soo daro maxaa ka soo baxay ama habab kala duwan hadii la isticmaalo maxaa soo baxay waxa saxala experiment tusaale the student ardayga did an experiment wuxuu sameeyay tijaabo in science class casharada science-ka ereyga 28aad ee maanta barayno waa kill ereyga 28aad waa kill waa dilid waana verb ficil kill kill it waa dilid to kill someone in ruux la dilo or something shay is to make them die waa in la dilo way make them die in la sabo inay dhintaan I killed waxaan dilay the fly taqsidii with a fly swatter waa baal yaroo meel la qabtano oo xagga horena oga eg baashan lagu dheelo basketballka kale marka baasha yarta oo tenniska lagu dheelo kale oo eego lagu dhufto taqsidiisa lagu dhufto I killed the fly taqsidii ayaan dilay with a fly swatter ereygaasna waa dilid ereyga kale aan barayna waa laboratory waa shaybaar lab baa loo sokeeya laboratory waa shaybaarka waana noun waa magac a laboratory is a room waa qol where scientist works saynisyahanku ka shaqeeyo tusaale waa kale my mother works in a laboratory my mother hooyaday works in a laboratory waxay ka shaqeysaa shaybaar my mother works in a laboratory shaybaar ay hooyaday ka shaqeysaa ereyga 30aad oo ka mid ah ereyada taxanaha barayna waa laugh waa qosdid laugh waa qosdid qosol ama qosdid yacni verbna way noqotaa nounna way noqotaa hadda noun baa noo qoran laakiin verbka markay tahay waa isla sidan what are you laughing at maxaad ku qoslaysaa laugh waa qosdid marka waxay laugh is the sound waa dhawaqa made la sameeyo when someone is happy qofka markuu faraxsan or funny ama wax funny ah wax lagu qoslo u arka things oo kale funny things oo kale waxyaabo lagu qoslo markay dhacaan love is the sound waa dhawaqa made la sameeyo when someone is happy qofku markuu faraxsan yahay or funny things oo kaas ama shay funny lagu qoslo oo sameeyo funny tusaale waxay the sound of their laugh dhawaqa qosolkooda filled wuxuu buuxiyey the room qolka ayuu buuxiyey aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale kusoo dhawaada Jubba Institute of Professionals YouTube channel fadlan saar subscribe-ta iyo like-ta gambaleelkana ku dhufo si casharada ku xigo ay kugu soo dhacaan casharada waxay noo noqonayaan taxane insha Allah tacaala maalin kasta waxaan soo gelin doonaa ugu yaraan hal cashir kastana wuxuu ka kooban yahay 10 eray oo macnahooda English to English iyo iyagoo Soomaali ku sharaxayno fadlan ku xidhnow YouTube channel-keena sidoo kale ku bir Telegram group-ka haddii aad si gaar rabto in wax lagu baro ama luqadda lagula barashadayana fadlan igala soo xiriir numberka ku qoran cashirka bilowgiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.